ballanqaadyadii ugu horreeyay ee uu ku dhawaaqay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka mid ahaa in shacbiga Soomaaliyeed loo ilaalinayo ammaanada ay dawladda u dhiibtaan oo ah cashuurta laga qaado shacabka. haddaba si ballanqaadkaasi loo fuliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa amray qorshe lagula dagaalamayo musuqmaasuqa kaas oo socday muddooyinkii dambe. la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa si fiican u hogaaminaya dhammaan hay'adaha dawladda sida hantidhowrka qaranka, xukuumadda, garsoorka iyo laamaha amniga. madaxda dalku waxay aaminsan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqu inuu suurtagal ka dhigayo in la xafido ammaanada shacabka si hufan loogu adeego muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cashuurta bixiya. dawladdaani waxay ku shaqayn doontaa inay ilaaliso ammaanada dadka. waa inay dhab naga ahaataa inaan la dagaalanno musuqmaasuqa. dhinaca kale Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacad ku taala Canada si dhowna ula socda xaaladda dalka ayaa qaba fikrad ah haddii uu guuleysto dagaalka dawladdu kula jirto musuqmaasuqa in markaasi ay dawladda u fududaan doonto xafidaadda ammaanada shacabka lana heli doono daahfurnaan isla xisaabtan iyo kalsooni shacab. way dhowdahay runtii oo waxay yiraahdaan financial management system ayay sameeyeen xataa financial report system waxay yiraahdaan oo magaranaysa meel center laga maamulo finance bay sameeyeen. marka waxyaalo badan ba iminka xataa waxay sameeyeen in lagu bixiyo account lagu bixiyo mishaarooyinka ayay sameeyeen. hadday sidaa ku wadaan ay sii xoojiyeen oo dawladdan hadda Farmaajo iyo Xasan Khayre waa kuwa leh musuqmaasuqa mas'uuliyiinna hadday talaabooyinka markaas sii maraan waxyaalo badan bay keenaysaa ma aha dadka kaliya cashuur bixiya ee xataa dadkii adduunka lacagta ku siinayay baa ku aaminaya oranay war lacagta si fiican baa loo maamulay mar haddii si fiican loo maamulayna wax kale in la siiyo dadkani buu tamaan. marka arrinta ay weydiiso waxa ugu muhiimsan ee hadda in la sameeyo ay tahay transparency waxay yiraahdaan inuu wuxuu daahfuraado oo akaanada la sameeyo wayna sameyn karaan. maanta waxaan ku wanaagsan hadda Soomaalida nahay waxaan ku wanaagsannahay waxaan ka faa'iideysanay technology waxay ka faa'iideysanay wixii baan ka faa'iideysanay dad badan oo Soomaaliyeed baa waxaan ku wanaagsan jaamacadaha xataa Soomaaliya ka dhisan baa ku wanaagsan system marka waxaan wada sameyn karaa. anigu sanadkii hore waan tagay 2600 bangiga waxaan soo caawinayay dhaxan soo caawinayay oo durbo computerized IT waxay sameeysaa system wanaagsan ba system habda IT oo wanaagsan buu sameeyay. allah khayr ha siiye governorka meesha hadda xukuma Bashiir Ciise Cali وحوي على عيسى وحوي نن آد يا آد ودت كان ethical إلهي من قرن إنسان كويبي إننا ويان وين هبيين والعاوية أو واحد عاوي بانكي بعاوية مركا واحد إسلاه عنو سنة كا إسقى هدي دلالك لا صاروا والله سمين كرا حبضت كشعب يكونوا آمين كران in cashuurta la qaaday aan la musuqmaasuqayn dadkii deeqda nisiinayeen ay aaminaan inaan ma garanayso in la abuuri karo ayaan ku rajaynahay. wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo madax ka yahay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kaalin wanaagsan ka ciyaaraysa dadaalka dawladdu ugu jirto hagaajinta nidaamka maaliyadeed ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaana shaki ku jirin in durba la gaaray guulo muhiim ah oo ay ka mid tahay bixinta mushaharka oo joogto ah iyo sidoo kale warbixinadii ka soo baxay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo World Bankiga ama Bankiga Adduunka kuwaas oo cadeynaya in dawladda Soomaaliya ay ka soo baxday dhammaan bashuuradii loo baahnaa. taas oo markaasi ka markhaati kacaysa in uu hoos u dhac weyn ku yimi musuqmaasuqii lagu eedeyn jiray Soomaaliya. waxa bushaare weyna inay noo suuro gashay inaan mushaarooyinka u dhabbixin waxyaalo badan oo aan la oran karin bay taasi ahayd laga soo bilaabo bilowgii sanadkan ilaa maanta inaan mushaarooyinkii wada bixinay waxa yaree harayna ay yihiin waxyaalo si kale oo technical loo bixin waayay. taasi waxay ku tusaysaa waxa weeye inuu dakhligeeni kordhay dakhligeeni kordhayna waxa weeyaan meelihii dhiigaysa oo dhiig joojin lagu sameeyay un bay tahay hataa ballaarintii weli maanaan ballaarin inaan iska bixin karo ciidankeena mushaaradiisa baarlamaankeena mushaaradiisa dadka dawladda u shaqeeya mushaarka dawladda wasaaraddu waxay ku shaqeyso leerka iyo biyaha inaan ka bixin karo inta markaynu isku filaana ayaynu wax kale geli karaynaa
waxay naga go-antayna madaxweynaha iyo prime ministerku nagu hogaaminayna waxa weeyaan intaa gaadhno aniga say igu muuqatana imika waxaan u manayaa dadka Soomaaliya haddayna aaminaaddoodii baan ku jirnaa imika credibility inaan samayno hadday ina aaminaan inay nagu aaminayaan maalkooda annaguna xisaab celin bixinayno bil walba markay 1 iyo 3 tahay